lacagta batroolka oo loo yahay intay dunida markii hore aad u kor ugu kacday inay soo dhacday oo monopoly la gashay wax gaara oo aad aragto oo aan ummadda ka qarsoonayn in heshiis uu kula jiro madaxweynuhu maanta jooga uu heshiis kula jiro shirkad gaara Total la yiraahdo uu kula jiro shirkadaas oo ku haysata monopoly ku haysata ama si gaar ah cunaqabatayn ku haysa batroolka qaranka iyo ascaartiisa ku haysa waxaan leenahay waan ka xoreynaa annagu shacbiga reer Soomaaliland waan ka xoreynaa ixtikaarka noocaasa iyo dhaqanka caynkaas waan ka xoreynaa madax banaanadiisa baan soo celinaa dadka lagu daleynaa sicirka ka yareynaa waqtigaan marba eegina lagu jiro oo sida ummadda ay dhaqaalaheeda iyo dadkeeda iyo shacbiga itaalkeedu ayaa eegina isu miisaaminaa dakhliga loo baahan yahay la soo saaro meesha laga soo saarayo iyo baahida shacbiga dalka uu qabo arrimaha kale ee muhiimka ah isla markaasina ay xukuumadani ku tallaabsatay kana dhawaysay waxa ka mid ahaa in xilligaasi dalka ay ka jireen arrimo dhinaca ganacsiga ah oo kooto ugu xidhnaa ganacsato kooban oo isugu jirta kuwa dalka u dhashay iyo ganacsato ajaaniba haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera waxay ka mid ahaayeen waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee xukuumadani ay ku tallaabsatay in ay xor uga dhigto ganacsatada reer Somaliland in ay dalka keeni karaan kuna kaydsan karaan shidaal ay ka soo iibsadeen wadamada kala gedisan ee khaliijka iyadoo oo ay caqabada ugu weyn ee arintaasi ay u suurto geli weyday ka hor hogaaminta dalka ee xukuumadda madaxweyne Silaanya ay ahayd in xilligii xukuumadii marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ay kooto 50 sanadood ah ugu xidhay maamulidda haamaha shidaalka shirkadii lagu magacaabi jiray Total xilligaasi may jirin shirkado ganacsi oo muwaadiniinta reer Somaliland ay leeyihiin oo dalka keena shidaal marka laga reebo shirkadda Rorsi oo iyadu xilligaasi dalka keeni jirtay shidaal aan badnayn talagalkii iyo heshiiska dawladda kula jirtayna waxa ahayd in dhammaan lagu wareejiyo kaydka haamaha oo dhan isku dhan lagu wareejiyo wixii kaalmo jiray dalka ee dawladda hore ka tagtay markii ay day ugu timi shirkado madaxweynuhu wuxuu diiday in shirkadihii looga saaro meesha shirkadihii badi ay Total faa'iido ka qaadanaysay lacagtan dadka service ka qaadisay inay shirkadihii la tartami ka dhawaayaan nasiib wanaag shirkadda qura ku sii hadhay meeshii waxay noqotay shirkadda Rorsi oo muddo badan kaligeed iyo Total ay ku hadheen intaana waxa xaawilisay Rorsi lafteeda inay meesha ka saarto waxa dhacay xilligii daahriyaale wax isbedel kama sameyn marka dawladdaas iyadu waqtigeedii waxa ku dhameysatay in ay sida yihiin xaaladdu ku ilaaliso marka calaayah waqtigii dawladdu dambaatimeeda iminka madaxweynaha cusub haysto waxa meeshii ay ku soo beegantay xilli aanay Total la joogin dad private iska haystaan oo aan meel ka diiwaan gashan jirin oo aan dhaxa ku haysta meesha markii ay warar badan u soo baxeen xaaladda loo fiirsaday ee aan la ogaaday in Total ba jirin waqti lagu dhirada laga qaaday meesha dhibaatooyin fara badan ayaa soo gaaray oo la soo dirsay haamaha iyo dhuumaha shidaalka xambaara waxaana madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo uu digreeto ku laalay maamulidii haamaha shidaalka ee Total isla markaasina waxa dhashay oo abuurmay shirkado ku dhow 6 shirkadood oo dalka shidaalka keena shirkadda shidaalka keentay ee Haas Petroleum waxay ka mid tahay shirkadaha ganacsi ee muwaadiniintu ay leeyihiin ee abuurmay kadib markii meesha laga saaray shirkadii Total waxaana Cabdirasaaq Ibraahim Ataash gudoomiyaha shirkadaasi uu daboolka ka qaaday inay ku faraxsan yihiin dhaqaalaha cashuureed ee tirada badan ee xukuumaddu ay ka qaado oo ka dhex muuqda miisaaniyadda qaranka isla markaasina shacabka iyo ummadda wax loogu qabanayo waxaan ogahay cashuurta aanu bixino awoodeeda iyo meesha ay marto annagu dhaqaale baaxad laanu iminka bixinaa xagga cashuurta malaayiin dollar baanu bixinaa sanadkii oo cashuur ah lacagtaasna waxaan hubaa inay toos ugu dhacdo qasnada dawladda annaga iyo wasaaradda maaliyaddu waxaa noo dhaxeeyay xisaab celintii
iyo dib u eegistii cashuuraadkii sanadka aanu bixinay marka waxaad ka arki kartaa numberka aanu bixinay lacagta si waadaxaan uga aragnay lacagihii aanu bixinay inay ku dhaceen qasnada dawladda taasna runtii anaga farxad bay noo tahay maadaama waxa ugu weyn dalkan aanu ku soo kordhinaynay ay ahayd cashuur iyo shaqo abuuris inaanu aragno lacagtii aanu bixinaynay oo jeebkaya ka bixinay inay ka muuqanayso qasnada dawladda si bulshada wax loogu qabto runtii aad baan ugu qanacsanahay waxaanu u leenahay access iyo dhaxgal in aanu ogaano waxa aanan habiga ku ahayn iyo waxa aanu habiga ku nahay inaanu kala munaashaqono kala hadalno maamulka haama laakiin de xilliga may dhacaynin saasi xataa waxa dhici jirtay shirkadihii marka operate gareynayay inay ku cawdaan inaan loo ogolaan jirin inay xitaa soo galaan xerada haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera laakiin annagu anytime iyo xilli aan u baahano madaxda meesha baanu tagi karnaa wax mashaakila oo naga haystaan ma jiraan dad team oo wada shaqeeya iyaguna service-kii bay hayaan iyo amaanadii aanu wixii aanu keenay dalka annaguna mas'uuliyad baan saaran dalka inaanu keeno shidaalkii loo baahnaa waxaba yaraatay cabatin iyo mashaakil